maanta oo kale 6 bisha Febraayo sanad walba dunida waxaa loo asteeyay maalinta ka hortagga iyo la dagaalanka gudniinka fircooniga. Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland waxay ka mid tahay deegaanada gudniinka fircooniga uu dhaqanka ka mid yahay. Si dadka loogu baraarujiyo dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ah, sanadkan wasaaradda haweenka, qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay qabatay kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Jubbaland, hay'adaha, haweenka, dhalinyaro, hoggaanka dhaqanka iyo culumaadiin. waxaana ka qayb galayaashii munaasabadda xuskan maalinta caalamiga ah ay ka hadleen sida looga gudbi karo dhibaatooyinka laga dhaxlo gudniinka waxyeeleeya gabdhaha. dhibaatooyin aad u badan baan kala kulannay haddaan haweenka Soomaaliyeed nahay gudniinka fircooniga. haddana diyaar waxaan u nahay inaanu dabar goyno gudniinka fircooniga oo aan raalli ka ahayn in haweenka gudniinka fircooniga oo dambe la gudo. magacan sheegiisaaba xunba fircooniga baa la leeyahay inagu reer fircoon baynu nahay. waxaan leenahay wixii xun waxeena ma aha. haddaanu dhaqanka nahay ma rabno, haddaanu islaan nahayna ma rabno. anigu waxaan ahaa haweenka ka shaqeeyo gudniinka fircooniga. horta wixii naga wacyigeliyay waanu mahad celinaynaa. xagga diiniyana hadda aan dib u baraarugnay, waanan ka taraansuulnay, waana arrin xun inaan cidhib tiro waxa Ilaahay uu nacay ee uu ka cadhaysan yahay ee innagana ina duleynhaye ina dhibahay waxa idan dhibahayaana dhibahay aan isku ogaana marka maanta in aan dabar goyno waxa xun. hay'adahana in lagu taageero arrinta gudniinka fircooniga aan rabaa oo gacan weyn la siiyo. wasaaradda haweenkana sidoo kale gacan weyn lagu siiyo sidaan ku ciribtiri lahayn gudniinka fircooniga. wasaaradda cadaaladda waxay ku dadaali doontaa in ayna ku baraarujinaysaa dadka inay aadaan maxkamadaha. inta badan keeska waxa lagu xaliyaa hoos-hoosay iyo xaafaday waxa lagu xaliyaa inay sharciga iyo maxkamadaha ay isticmaalaan. si wanaag Jubbaland hadda waxay leedahay maxkamada dhisan, haddii aan leedahay maxkamadii sare, maxkamadii racfaanka iyo maxkamadii degmada inta way jiraan. dhaqankeena uu ku taagnaanaynaa laakiin sida saxna uu taagnaana kuwan xadgudbana aan soo celin. inta ay tala adduunku shuruuc uu ka sameeyay waxa weeye waxa ku qoran inuu yahay gudniinka fircooniga inuu yahay xadgudub lagu sameeyo ilmaha jirkiisa la gaarsiinayo. waxa weeye sida maartay dhaawacyada kaleba dambiyada u yihiin qofka jirkiisa gaaraya oo sida dhaawaca qofka la gaarsiinayo qalab dooni waxa la isticmaalay. agaasimaha jinsiga iyo arrimaha qoyska dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamed Xuseen Maxamed ayaa sheegay inay fududaan doonto in sharciga lala tiigsado ciddii samaysay xadgudubka gudniinka haddii uu sharciga ama xeerka gudniinka ee ay wasaaraddu hormuudka ka tahay uu dhaqan galo. waxaan rabnaa hadduu dhaqan gala xeerkan hindisa sharciyeedka halkan ku xusan in cid kasta oo xadgudubka noocaas geysata in ay noqon doontaa meel loo tixraaca ama sharci qabanayo uu jira in ay ogaato bulshada asagoo dhibaatooyinkan ba'an iyo raadkaas dhaqanka raadka dheer leh diin ahaanna u xun dhaqan ahaanna u xun in uu noqon doono mid sharciga lala tiigsada cid allaale cid ay ku dhaqanta. gabagabadii ka qaybgalayaasha ayaa isku raacay in si wada jir ah loo wajaho ciribtirka gudniinkan oo ay dhibaatooyin xad dhaaf ah kala kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed. maalintan xuska ka hortagga gudniinka fircooniga ah waxaa loogu talagalay in dadka laga wacyigeliyo dhibaatooyinka caadadan. hase yeeshee weli ma jiraan sharciyo adag oo ciqaab lagu mutaysan karo marka gabar lagu xadgudbo. walow ay wasaaradda haweenka, arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubbaland sheegtay in xeerkan gudniinka fircooniga ah uu mar dhow dhaqan geli doono. Cabdullaahi Xuseen Kilas, telefishinka caalamiga ee Ariel, Kismaayo. gudniinka fircooniga waan joojinay waana diidanay.